waxaa xilkii laga qaaday taliyaha booliska gobolka Banaadir Saadiq Cumar Xasan oo loo yaqaano Saadiq John. xilka qaadista taliyaha oo howsheeda markaasi ay socotay muddo badan ayaa waxa ugu dambeyntii lagu guuleystay in Saadiq John xilka laga qaado wax yar ka hor inta uusan madaxweyne Farmaajo raacin safarka New York. Saadiq John ayaa markaasi lagala tashtay xilka qaadistii lagu sameeyay isaga ka hor inta aan markaasi go'aanka la qaadan, waxaana lagu qanciyay in xilka leh loo bedelo ama loo magacaabo. taliyaha ayaa markaasi loo soo jeediyay in uu kala doorto laba xil midkood, kuwaas oo kala ah taliyaha ciidanka lugta ee xoogga dalka, taliyaha ku-xigeenka ciidanka booliska Soomaaliya. Saadiq John ayaa la sheegay in markaasi sida xogtuna ay sheegayso in uu markaasi doortay taliyaha ciidanka lugta ee xoogga dalka. xilka qaadista ayaa waxa si rasmi ah loogu dhawaaqi doonaa marka uu madaxweynaha ka soo laabto safarka uu ku joogo magaalada New York ee wadanka Mareykanka, halkaas oo uu uga qayb galayo shirka qaramada midoobay ee halka ka soconaya. Saadiq John ayaa xilka taliyaha booliska gobolka Banaadir hayay muddo 13 bilood ah, waxa ayna dowladda Soomaaliya u aragtay inuu yahay nin muhiim ah oo aan markaasi looga maarmin arrimaha ciidamada. taliyaha qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir ayaa la filayaa in loo magacaabo Mahad Korow oo hadda markaasi haya xilka taliyaha ciidanka ilaalada aqalka dowladda hoose. qaybihii hore ee